أهلا وسهلا صاحبي السود وهذا ومولد سام يوم قال كلا عصب عاوة برنامج كي واحد مرتكو براجع فيلم كهبون نبيجي الله دارتيا فرقانك صوتك تيو رسولك اللي بدايو نبيجي الله دارتيا فرقانك صوتك تيو رسولك اللي بدايو مهد إبراهيم أنت أنا برنامج كان بلعبن لبيت وين كسالود وجوهرين سود صح aad ma santi mawlido waan ku dhawahay channel-kaaga mar kale waxaan hore ka bilaabanaa su'aalahaygaas waa 12 su'aalood su'aasha ugu horeysan doonaysa xabina fuudiyo waxay tahay waqtigii kugu horeysay ee aad bilowday burista filimada horta mawlido mala xilligii ugu horeysan day kara filmaanta qoraalkooda waan bilaabay wax weeyaan 2018 filmaantan aan waano daaqad ka soo galo iska jiro man sarkay meehay wax ii qorshaysna markii hore oo dadku markay secondary dhigtaan ama jaamacad dhigtaan ama meel wax barasho ka wadaan baa wax arkaysa iyagoo hamiisiilo kulani waxaan jeclayn waxa ku biirina waxa sameeyo aan uma jeclayn markii hore filmaantii waxaan ka shaqeeyay laakiin markii dambe aan ku dhex jiro man sarkay qoraalkan markii hore ku soo horeeyay bilaabay 2015 waan sheekooyinka iyo buugaagtii waxyaabahaas inaan qoraan bilaabay dadna markii dambe waxaan sameeyay dariiqad qoraalka ka haboon oo aad sheekooyinka iyo filmaaga bulshada ku gaarsiin karto bal inay jirto ka fikir dadna tan baa ii soo baxday oo marka sheekadaadii muuqaal u bedesho dadkii gaarisa way badanayaan marka saasaan horta ku soo dariiqada ay magaranaysaa daaqada aan ka soo galay marka xilligaas aan bilaabay waxaan 2015 qoraalka sheekooyinka bilaabay laakiin filmaanta waxaan ka shaqeyntooda bilaabay 18 meelaha soo sheekadii ugu horeysay taxanay aan qoray qadar loo oran jiray aan sameeyay qoraalkeeda la duubay waxa jiray film haboon la yiraahdo oo muddooyinkii ugu dambeysay ama 5 bilood ugu dambeysay baan oran karo yani Soomaali waxa filmkii ugu saamaynta badnaa ee la sameeyo filmka waxa ahayd qofkii qoray part 1 haboon bal filmka ay fikirkiisa iyo qaabka ku keenay sax haboon wuxuu kamid ahaa runtada filmaanta ugu saamaynta badnaa Soomaalida dhexdeeda oo soo saartay astaan filmkaas markii hore fikradiisu waxay ku timi teamka filmaanta ka shaqeeya astaan ayaa ka fikiray film ay sameyn karaan oo yiri maxaad film sameyn kartaa dadna fikradii filmka iyo boorigii filmka iyo sheekadii filmka iyo shakhsiyaadka iyo wixii oo dhan bay dhiseen ana markaa maadaama qorayada astaan kamid ahaa script writerska astaan kamid ahaa sheekadii markaa ana la igu soo wareejiyo lagu limaad sheekada boorigii iyo wixii la soo dhisay bal igu qor dadna sheekada haboon markaa waxaan dhihi karnaa fikradeedu markii hore waxay ka timi team bay ka timi ka fikiray fikradda dadna sheekada qoraalkeeda aniga lagu soo wareejiyo markaa qoraalkeeda iyo xaqalaha ugu badan aan anigu qoray fikradeedu saasay ku timaastay in haboon markii filmka haboon yani inaad qortaa waqti intee leeg buu ku qaataa adiga horta qoraalku waxyaabaha ugu adag filmka kamid ah filmka marka hore hadaan qoraal jirin hadaan script jirin hadaan sheeko la raacay jirin waxa duuba ma jiraan oo dadka teamka kala dhan waxay ku shaqeynayaan laga shaqo qaadanaya sheekada filmka sheeko in la qorano waxyaabaha ugu adag waxa weeye dadku waxay u haystaan in sheeko la qoro wax yar oo fudud sheekadu waa hal abuur maskaxda shiilaysa waxa weeye waqti badan ba ka lumaya habeen badan soo jeedaysa bum badan baad u cabaysaa marka in haboon waxaan dhihi karaa muddo 20 cisho meelahaas ama dhowr iyo 20 cisho adigu taqriiban bil ku dhadhow ayay ku qaadatay qoraalkeeda waxa jirtay waqtiyada hore sagaashamaadkii sideetamaadkii filimada Soomaalidu qaab ay u sameyn jirtay laakiin qaabkaas wuxuu ka riwaayadihii hore Soomaaliya hore u sameyn jirtay ama sinimooyinka laga daawan jiray ama baad meelaha TV-da lagu baahan jiray laakiin hadda waxaad moodaa in isbedel weyn ku yimid marka farqiga u dhaxeeya waa maxay soo dhan kartaa antu Soomaalidu inteeda badan waxaan dhihi karnaa ma fahansana film hatta kelmadda terminology-ga film hadii malaha qaaxitaankeeda ma garanayo waxa laga wado marka way isku qaldaan riwaayad iyo film iyo masrax iyo wixii saas isku dhex qasayn laakiin filmku aad buu ka duwan yahay filmku riwaayadu ka duwan yahay riwaayadu xitaa masraxay ka sii duwan tahay oo riwaayad masrax lagu soo jeedinayo riwaayad muuqaal ahaan oo la duubayo iyo film waa saddex waxa aan isku shaqaalahayn weeyaan filmku waxa weeye wada la raacaya script baa qoran waxa weeye qofka jilaaga ah director ku taxakumaya oo xitaa dhowl cadeyntiisa qaabku dhowl cadeyn uu sheegaya qaabka qofka uu la sheekaysanayo uu eegayo uu sheegaya xarakaadka uu qofku sameeyo iyo hadalka ka soo baxaya labadaba qofka director ka ku taxakumaya laakiin riwaayadda qofka waxa la siiyaa mafhuumka guud ama ka soo kalsiya deetana isaga wax iskaga sii dardarsada isaga halabuurkiisa sii raaxsada waxaan dhihi karnaa waxa kala duwan filmku wuxuu leeyahay script iyo dal raaco laakiin ma laha riwaayadu ma laha masraxna soo kala malaha ka duwan isla filmka haboon dadka Soomaalida ah markii YouTube lagu soo baahiyay
waxaad moodaa muddooyinka dambe dadkii Soomaalida inay aad u soo baranayaan yani YouTube-ka wax ka daawadaan laakiin marka la eego YouTube-ka de yani video 1 million gaadha de wixii ugu horeeyay wuxuu ahaa video hees ah videogaas yani dhowr cisho ku gaadhay 1 million laakiin filimka Habboon wuxuu noqday filimkii Soomaaliya ugu horeeyay ee hal maalin ay 1 million oo qof yani daawadaan bal markii aad filimka aad aragtay sidoo kulaha dadka inta laga ay one day ku daawadeen horta wuxuu ahaa wax lagu farxo wuxuu ahaa rajo fiican oo filmaanta Soomaalidu ay sameynaysaa iyo xataa dadka ku jira ee isla filmaan sameeyay rajo fiican bay u ahayd de wixii aad qortay fariintii aad gudbinaysay dad inta leeg ay gaadho kale ujeedada loo socday waxay de sheekadu marka hore fariin bay ku saabsan tahay adiguna waxaad sheekada uga dan leedahay waxa fariintaada inaad bulshada gaarsiiso bulshada inta leeg inay fariinta saaran ku gaadho ama ay dad inta leeg gaadho wax lagu farxo weeyaan dhan kale marka laga eegana waxaad arkaysaa Soomaalida inay u baahnayd production film marka hore oo sababay ay Hindiga u daawanayeen Turkiga u daawanayeen waxyaabo kale u daawanayeen ay ahayd in aanu jirin production Soomaaliyeed oo film aanu jirin laakiin markii ka la helay in Soomaalida xagga filmaanta jeesatay oo ay ka heli karayaan sheekadoodii oo ay ka heli karayaan waaqoodii wax ka hadlaya oo ay ka dhaxal karayaan xaafadoodii magaaladoodii ay ka dhaxal karayaan ay ka daawanayeen New Delhi iyo Ankara iyo Turkiga ay ka daawanayeen hadda waxay ka dhaxli karaan filimka hadda waxa laga yaabaa adigu qudada xaafadiina maalin waaqdooda deetana xaga xiisa gaar ay ku leedahay dad Soomaaliyo adigoo kale aba ku jira marka waxaan dhihi karnaa de wax weeyaan wallahi waa very good in la helo bulshada Soomaalidu inay u soo jeesato xagga magaranaysa film daawashada filmmakers-kana waxay u tahay fursad weyn oo qofka film doonaya inuu film sameeyo de bulshadii waa la hayaa jamhuurkii waa la hayaa hal la helaa la production-kii marka adi ahaan imsa film baad ka shaqaysay intii aad filmkan ku dhex jirtay horta film sameynta waxa weey waqti badan kuma jirin haddana waxaan dhihi karaa waqti khibrad fiican aan ku kasbanay magaranaysa de rajo fiican aan ku helana waan ku jiray 2021 filimka intii hore qoraalkiisa aan qori jiray sheekooyinkiisa script waxa aan qori jiray markii hore Suudaan aan joogay laakiin markii aan wadanka imi baan fiilka filmka toos u dhaxgalay marka 2021 iyo 2022 labada sano iyo Canada lagu jiro ayuun baan filmaanta ku dhex jiray marka waxaan ka shaqeeyay adigu filmaan dhowran ka shaqeeyay oo Habboon si sameeyay sheekadiisa qoray filmaan kale oo aan sameeyo taxanaha iyo qaar shortaha iyo kuwa kaleba dhowr filmaan ka shaqeeyay muddadan ku jiray isla filmka Habboon kadib ma jirtaan filmaan soo wadaan dabcan hadda waxaan soo wadnaa filmaan kale oo insha Allah aan rajaynayno aan isla sameeyo wax weeyaan in aan filmaan isku xiga soo saarno oo marka film dhamaadaba haddana aan dadka film kale soo saarno oo magaranaysa ay helaan dadku waxay daawadaan marka hadda Habboon way dhamaatay laakiin waxaan haynaa haddana insha Allah filmo aan rajaynayno inay meeshii Habboon iyo meel ka sarreysay ay gaari doonaan oo qaabkii Habboon kale loo duubay markastoo aan film sameeyno kulli filmkeega hore uu ka saameyn badnaan ee uu ka sareynaya xagga quality marka hadda filmaan kale soo wadnaa dhowr film oo kale hadda gacanta ku haynaa soo wadnaa laakiin waxa dhihi kara waxa ugu horeeya film hadda magaciisa hayaan la yiraahdo oo bacda ciidka iyo waxyaabo maalmaha kale ciidka ka dambeeya bisha ciidka ka dambaysa soo bixi doona insha Allah kaas hadda waxa uu soo dhow jira iyo qaar kale oo ku daba jiro diyaar iyo qaar hadda duubistooda lagu jiro shootingkooda lagu jiro qaar hadda qoraalkooda lagu jiro insha Allah filmada ma kala joogsan doona ninkani filmada Habboon quality-gooda wax ka hooseeya ma sameeyo marka filimka hayaan taxanahana alla la socdo isaga kulli kaas uu ku dhawaanayo filim duubistiisa insha Allah uu ka fiicnaan karaa insha Allah ka fiicnaan karaa inta leeg bas leeday ka gaad yani film sameynta hadda waxa kaliya aan ka shaqeeyo aan ku dhex jiro حتى أديه كرد دال كي يقول لما نجلي عندي كروا في المهنة سماي يعني في الكاف في المهنة عن كشقة دمرها واحد كجرن كرتها فكرة رشاد عن كقبو أما حتى إن أركتوري مستقبل كان كربو واحد كجرن كرتها إن دال كي يقول عن في المهنة كسر قبو وحتى كان عدو حاجة يعني كده جنش يشاري دي وحاجة أنت سرتها هوس دكتي عن حاجة كشقة يعني marka anigu hadda waxaan arkaa in ay Soomaalida dhexdeeda bilow fiican tahay film sameyntiya oo la oran karo hadda waxa weeyaan waxa la jeexay wada la mari karo wali anaga astaan ahaan aan jeexnay marka waxaana soo socda Soomaalida dhexdeeda waxa weeyaan film sameyntu waa way qaydintii wali way dihinta baan dhihi karnaa waxa weey waa macdan aasan oo in la soo qodo u baahan marka de kulay dadun baa marka hore soo saari lahaayo waxa weey mustaqbalka diini waxa ka shaqeyn lahaa inaan dadka ka mid noqdo oo dadka Soomaalida filmaantooda fikirka ugu sarreeyay insha Allah gaarsiin doonaan ka mid noqdo insha Allah weeyaan mustaqbalkan kale waxa jiray magac kamida magacyada Soomaaliyeed oo marka social media la joogo magaca marka la maqlo adiga lagu xasuusto bal marka nasriga war
horta Nasriin waa runtaada waxa weeyaan waxa kamid tahay Nasriin aniga qudad abaal baan u hayaa waayo waxa weey waxa kamid tahay sheekooyinkii soo galiyay filmaanta ku jiro markaas Nasriin waxay sheeko 2017 soo socotay dad badan ay ka warayaan xitaa Stan TV aan ku sameeynay waa film bedelnay inkastoo aan dhamaystirno xalqada 10 xalqadood ka sameeynay intaan oo ka badnaa 2017 يعني dadkii de yani waqtiga ogaaway ninkan dhinacayga fadhiya ma wuxuu ahaa sheeko WhatsApp de kulli intii daawatay beriga la socon jirtay way garanayaan sheeko WhatsApp la soo jawaabayo oo heer la isla gaadhay de meel aan la maleysan karin kulli de qofkii ninkii la fay waxa iyadoo filmana markii dambe soo saaray dabcan marka dad badan baa waxay moodayaan Nasriinta beriga ka sheekan jirtay inay tahay inta film gulubta dabcan horta inaad film tisho film marka tisho waxa laga yaabaa characterka filmka aad ku jirayso inuu ku raacaba xitaa dad fara badan baa waxa jiro oo magacyadoodu hadda ay leeyihiin uu film ka soo raacay حتى عالم كذا حتى هنديدو كذا تقول فرصته سومالي ما قاعد تقانا إنه كتشيجر أو كله حلقة يبقى فيلم كيسي كودن تشيجر لورين شري أما سحسو كله مركا وحوي إن أنت حاسس إنه ما قاعد نصير هذا ورا عجوا كله ما كي مجال مرسو سرين بالله يقانا واسمي علم هذا السعبات بدل ما حسنت هاي وقدام بين إن ضد بحشرة بدنا فيلم هذا ضد سمسك وحرن أما كنت حن أما ضاوضة أما حسية إن فرنت قدام مستر كان أضمر نسا ما حيتهاي horta waxaan leeyahay dadka wax soo saarkayga daawada sheekooyinkayga iyo filmaantayda iyo wax kasta aan soo saaray xiiseeyo waxaan leeyahay mahadsantiin waxa kaliya hadda aan ugu mahad celin kara waxa weeyaan inaan mahad celiyo wax kale hadda aan u sameyn karo dadka inta aan isnaqaaneed toos ugu timaado ama ii bogaadisay guraada wax weey shaqo fiican bahaysa iyo inta aan aqoon commentiyada iga soo tiraahda iyo inta xataa aan aqoon hadana niyada iska tiraahda wax weey ninkaas sheekooyinku sameeyay way fiican yihiin niyada iga hambaleeyinta waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin insha Allah waxaan ugu bashaarinay cidii wax soo saarkayga iyo filmaantayda iyo waxa soo dhan jecel waxaan ugu bashaarinay insha Allah in aan kusoo butaacin doono maalmaha soo socda insha Allah waxa badan naga arki doonaa dib hayra barnaamijkeena ka san ku soo xirnaa tan iyo intii mar dambe hawada ku kulmi doono waxaan leeyahay muuqaalka la gareeya share gareeya lana wadaaga asxaabtiina